قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولليال إلهي بمهلا سبحانه وتعالى ربك رحمانك إنه قدري إن هدنا مركلة هودا أن السوق الله بنو سيدي عادي إنه هيد مالمه رمضان كأوجو labadii usbuuc ee ugu dambeysay ama nuskiisii dambe ayaan soo bilownay inaan xalaqooyin baraarujin ah aan samayno. xalaqadii dhaweyd shalay waxaan ka soo hadalnay runtii arrin ku saabsan dabac wanaagga iyo sidee aan u noqon karaa qof la jecel yahay. waxaan isweydiinaynaa markaa sifooyin ayaan soo sheegnay runtii. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala walaalayaal ciddii aynan u suurtoobin inay hesho inay dib ugu laabato xalaqadaas. sifooyinka waxaa la iska rabaa runtii in aan ku dhaqanno walaalayaal. baaraka allahu fiikum. waxaad arki runtii xadiiska aan rabno maanta inaan isdul taagno waa xadiis ka hadlaya dadku waxa ay ku dhawaaqaan ay ku hadlaan, hadalka carabkaaga ka soo baxaya ayuu ku xiran yahay xadiiskaasi. carabkaasi wuxuu noqonayaa mid ku geeya halaag oo cadaab ku geliya, ama mid lagu jeclaado oo iyaa ku jeclaanaya allah subxaanahu wa tacaala number 1. number 2 waxaa ku jeclaanaya makhluuqaadka rabbi subxaanahu wa tacaala u khalqay. idan waxaa isweydiin leh, ma jeceshahay in aad noqoto qof la jecel yahay oo rabbi jecel yahay ummaduna ay jeceshahay? asraar baa jirta markaa, sir baa jirta markaa la sameeyo oo lala yimaado dabacyo kala duwan oo u baahan in aan develop garayno ayaa jirta. nabigeenuna ina baray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. kow, xadiiska wuxuu leeyahy nebigu markii la weydiiyey maxaa dadka geliya jannada inta badan, maxaa dadka cadaabta geliya inta badan, laba kelmadood ayuu ku jawaabay nebigu. wuxuu yidhi taqwa allahi wa xusnu lkhuluq. waxaa jannada gelisaa laba arrimood. xalqadeeni ugu horreysay baan ka hadlaynay, xalqadeeni shalay baan ka hadlaynay aan idhaahdo xusnu lkhuluq, dabeecad wanaaga iyo waxa aad ku heli karto. alla ka cabsi iyo dabeecad wanaag baa jannada lagu galaa inta badan ayuu yihi nebigu sal alla alay slam. cadaabka waxaa lagu galaa wuxuu yidhi alfamu walfarju. cajiib. afka iyo cawrada, carabka iyo cawrada ayaa ku gelisa cadaabta. maxaa yeelay haddii la xifdin waayo carabka oo cawrada la xifdin waayo, maxaa yeelay dunuub ayaa ka ratimi, dembiye waaweyn baa kaa dhici, dembiyadaas baa ku gelinaya cadaabka walciyaadu billah. waa garan kartaa nabiga calayhi salaam inuu ballan qaaday uu leeyahay yaa ii ballan qaadaya inay xifdiyaan waxa ku jira labadooda daan, macnaheedu carabkooda, iyo labadooda bowdooyin ama labadooda logooyin waxa ku jira, oon aniguna ugu ballan qaadaa inay jannada galaan. walaalayaal waxaa isweydiin la markaa hadalkaasi meelo badan ilaahay qur-aanka ayuu ku tilmaamay. quluu linnaasi xusna. waxaad dadka ku tiraahdeen wax wanaagsan dadka u sheega oo fiican. wa idaa xuyiitum, marka la idin salaamo, salaan u celiya ama mid ka fiican salaantii ku salaama. walaal, carabkaaga haddaad saaxiib uga dhigto hadalka wanaagsan, ummaddu way ku jeclaanayaan. ummadda waxaa ka horeeya rabbigii ku abuuray. haddaad carabkaaga saaxiib ugala dhigto magaca rabbi subxaanahu wa tacaala adoo dhahaya laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah,
عربك أتكون هيسو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله عربك أتكون هذا يكون هيسو هدي أي كصباحان وحن كورن ما دعي كرتا إني وحن يوحنا يكسن أي مال بذا وذقلان ولا ليال ما دعي كرتو صدران البركة حال إنه قبها هي خير الله ينسيه إن العرب كي نحفظنه عورده إننا حفظنه إلهي سبحانه وتعالى سينو جعل هذا تذكر إنه جعل هذا جزاكم الله خيرا ولا ريال خير كأن لو ذاقنا ولا لها كان الله جعلانه سيقود بيه إن شاء الله تعالى وحي طلقية صالح إيو وحكو ضر هذا وصو دريسينا أدبر جعل الله هنا نلسو ذاكتين جزاكم الله خيرا وأولاكي نحن جوهر السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم